akhyaarta soo dhawaada maanta waxaan joognaa baark weyn oo ku yaalo xaafadda Senior degmada Senior magaciisa waxaa la dhahaa Professor Dr. Najmuddin Erbakan waa baark weyn gudihiisa iyo banaankiisa waa lagu sii doonaa la socodna hadda gaari ku soo degnay gudaha u geli doonaa la socodna sida u jeedaan halkan waa mid kamid ah wadooyinka dadka loogu talagalay inay ku socdaan baarkiga waxa waaye waa baar aad u qurux badan cagaarka ku badan xilliyada geedaha caleema dhacsanayna soo dhow waa xilliga geedaha ugu qurxan yihiin bil ka hor xilliga caleema dhacsan lahaayeen waa xilliga geedaha ugu quruxda badan yihiin Senior Belediyada soo baarkan ku yaala waa baark weyn qaybo fara badan ayuu leeyahay kulli waa idin soo doonaa la socod wanaagsan meeshan waxay leedahay waterfall macmaleed dawladda ayaa u sameysay waxa waaye korkaas ay tubooyin biyaha ka soo daadiyaan hoosta markay imaadaan haddana tubooyin kala dib u celinayo motor ku xiran yahay waa macmal anaga soo natural Afrika ku haysana laakiin waa ka faa'iideysan la'aan macmalkiisa oo qurux badan maxaa loo maleynaa naturalka Afrika ku yimid quruxdiisa maxaa loo maleynaa haddii hawl yar oo dheeriya laga qabto dalxiiska caalamka dhan waxa waaye waa meesha imaan lahayd
أصحابي هل كان وميلا لو تلقى إن دتك كنا نستان صعد دير كده ودنا سأوجدان ووضع دير قفك عبار مكو صعدوا وحوا نسينا يرنا وقاتك كده صعد كيس أصيب وطايا لو تلقى راس أو حاجة يلا ودك ماذا إدكتي كده وحوا وكذا وستود وقرح كل ما بقول عيسو قوي يروم عنها أكسجين في عنها وكيلسا على الجوجاء اللي قرحه وليه قرحه سو جودو وحوالي يرنا واجرا كذا هو دافد استنقوف يعني هلسه والجو ما شاء الله معان بدن وميل لو تلقى إن وحي استرس اللي سقرب وعواي meeshan waxyaabaha ay leedahay waxa kamid ah haray yariis ama war yar saa u jeedaan wartan waa war yar oo loogu talagalay macnaha in dadka looga dhigo inay tahay war natural amal loo ikisi laakiin ma aha man made way yaa ku sameeyay halu sameeyay dalxiis in lagu soo jiito ana ayadoo natural ah waxaan leenahay ilaahay inuu sameeyo dabiici laakiin waa ka faa'iideysan midda macmalka ay markaa samaystaan sidaan u qurxiyaan حاول دلحيس كعالم قالوا وش جدنا فقال هنا وكيل عيان ودك الدلعي سنة وحواي وكقاب قادم سا من دون كثيرا كأرخيسين حواي وحنا والسن هي صوص مراي والسن حاجة سنة بونكو أصير تاو ممكن يكتلها ولا هو تلقى حاجة سنة ما يعني وحو ماشي لوني ما ضبنا وحواي وضبنا القرن وحواي أنا أكمل نعرف كم واحد سنة وحياة بس أكيد وكفي سنة وحنا هدي وحير خرج الفيديو وحير أو مسكها الفيديو على يابا الرئيس العالم كان إلى سوق جدل لكن وحاس رجل كفكر يا عيال سكروا لحظة إنه مسؤول أنت من جوع وحاي وحلا منه وحد نص مثل آخر ما يابا وبارك اللي هي كميت هاي لا عروت الأمور السيو أول كذا فرمان يبارك كل إنسان من كل شيء حتى غير اللي هي غير متفوز غيرها عروت الأمور وما شاء الله وين بدنا نقول اللي هي شقي وسدح قرار سكولين عياله باسكت بول فولي بول حتى فوتبول يعني هني كان نكبق إنه داعم فوتبول حتى وكل يركرام ومتكاس متكان هذا أقول حجرنا قديس متكاس كلو قدام به حواي دق مدى دت كذا وتلقى شيء إن هالكا كل نستان إن المود وكل عيار سستان إن عنده كل سدان إن استرس كسرق قادان إن يكون جميع سدان قريب جميع حتى ولي هاي يو إن سبور بنوني يوحي لو بعض تنس يفولي بول يوحي لو بعض إن يكون عيار كرام أيقو بلا العقل الآن يعني قف العقل يدينها مرة sababtoo ah lacag hore looga qaado waa lacagta canshuurta laga qaaday ayaa waxaan loogu qabanaya annaga lacag canshuur maalin walba naga qaada maalinka dhalan ilaa hadda lacag canshuur bixineen qofka doonaba aan siinay laakiin cid wax noogu qabata ma arkin oo raga jeebka ku shubtay marka dawlad shaqeyso waxaana lagu gartaa dawlad dadkeeda wax u qabanayso waxaana lagu gartaa
dadka qaar waxay sameeyaan waxay soo qaataan cabitaano iyo shaah iyo waxbay soo qaataan maryo yaryar ay soo qaataan ee dhulkaas iska dhigtaan dooggaas meeshaan iska soo fadhiisanayaan sheekaa meesha lagu galaa cabitaankaas waa la isaga casriyeynaa annaga casriyada kursiga ku kor casriyeynaa meeshaan waxaa waaye maradaada dhulka dhiganaysaa marada fahmaysaa casriyo jawi degan oo oksijiin fiican oo cimiladeeda maasha allah indhaha ku doogsanayso cagaar ah ku casriyeynaysa waay hadda waxaan joognaa public library-ga meeshaan waxyaabaha leedahay ka mid tahay baarkigan public library-ga waxaa loogu talagalay ardayda jaamacadaha iyo iskuullada dhigto inay ka faa'iidaystaan buugaag fara badan oo kumanaan buug ayaa laga helaa waxaa waaye qofkii u baahdo lacag la'aan isagoona buug lacag ku bixinin halkan ayuu ka qaadanayaa kaarkiisuu dhiibaa halkanuu ka qaadanaa markuu ka soo dhammaysto wixii uga baahnaa ka soo akhristane wuu iska soo celinayaa waa waxyaabaha waxay ka mid tahay serviceka ay dowladda u fidiso shacabkeeda ayay ka mid tahay